aniga iyo dadka aad arkaysa faraha badan ee halka jooga ee ka soo jeeda Soomaalida ogaadeeya waxa maanta halka shir ku qabanaya dhiigya Cabdmallas midku noo soo diray oo ah dambiile ilay maxamed cabdi cumar ilay oo ku magac dheer ilay oo runtii dhulka degan dadka uu xiray dadka uu dilay gabdhaha la kufsaday wax tira oo macnihi tira beel weey ma tirin karayo marka waxaan ka codsanaynaa dadka meesha naga maqlaya maanta banaanbaxayaga amna dhageysanaya inay runtii u istaagaan oo ay nagala qayb qaataan sidii aanu dadka dulmiga iyo dhibaatada lagu hayo aanu u istaagi lahayn daawadayaal sidaad arkaysaan waxaan ku sugannahay maanta Minneapolis halkaas oo isugu yimaadeen dadweyne aad u fara badan kuwaasoo ku mudaharaadaya madaxweynaha ismaaciil Soomaaliyeed ee ogaadaya halkaas waxaa ku qoran erayadii looga soo horjeeday madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed waxa halkaan dhammaan dadweynaha halka isugu yimid waxay ka soo jeedaan waa shacabweynaha gobolka ogaadaya waxaan halka kula kulmay dadweyne aad u fara badan kuwaas oo qiiraysan kuwaasoo dhibaato fara badan ka sheeganaya dowladda Itoobiya iyo madaxweynaha maahaatan ku sugan Maxamed Cumar gudoomiyaha ilbaarista ururka Maxamuud Nuur kusoo dhaw barnaamijka maanta maxaad ka cabanaysaan waxaan ka cabanaynaa dilka kufsiga dhaca suuqa xidhayga aan hadka lahayn ee lagu hayo dadka yaga waxaan halkan u taagannahay maanta oo aan runtii aad uga xunnahay oo aan dhaliil ugu soo jeedinaynaa dowladda yada Ameerika sababta loo siiyay fiisada ee uu u yimid dambiilahaasi maanta meesha waa nin gacmaha dhiig ku leh waa nin dadkiisii loo adeegsaday waa nin xabashidu ay u adeegsatay hooyadii inuu xidho aabbihiina xabad ku dhufto waa nin aan istaahilin weeye inuu maanta magaaladeenna Minneapolis ee qaaliga ah hoteelka Mario Downtown inuu maanta shir ku qabto oo Hilton seexdo nin u qalma ma aha waa nin dambiile waa nin magaciisa International Criminal Court la geeyay waa nin meel walba hay'ad walba oo meesha tagtay Human Rights Organizations ay magaciisa hayaan aad iyo aad baa mahadsantahay Maxamuud Nuur wuxuu tacalaq Mareykanka sida arkaysaa markan waxa ku yaala erayal laga soo horjeedo madaxweynaha halkan ku yaala arrintii lagu laayay aydanka waxay muujinayaan sawirro aad u falxun qofkii daawada ay dhibaato dareemi karo dareenka dadweynaha aad u xamaasadaysan yahay daawadayaal Saba TV waxay u soo diyaarisay barnaamij ay dadka kala qayb qaadato mudaharaadka ay ka soo horjeedaan madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee gobolka Itoobiya waxaa halkan ku yaala sawir aad u naxdin badan sawirkan waxaa ka muuqda qof gubtay inuu cunug yar yahay in kale ma kala garanayo hase yeeshee waa qof gubtay buu eg yahay oday Soomaaliyeed baa halkan tagay adeer magaca adeer dirxsan baliira adeer maxaa maanta halkan ku keenay waxay keenay ninkaas shacabka nama matalo waa nin axmaarada ku shaqaysato waa ninka ilmaha naga xasuuqay waa ninka dadka naga xasuuqay waa nin aan na matalin dooni mayno ninkaas isaga namana matalo wax garadkiina ma ku raacsan yihiin arrintan waan isku raacsannahay saqiir iyo kabiir waan isku raacsannahay waa ninkii na xasuuqay ilmaha naga xasuuqahaya maatidaanada xasuuqahaya dalka anaga u iibsanaya waa nin dhiigyacabkaas dooni mayno annaga dalkii koor baa kugu dambaysa adeer dalka waxaa igu dambaysa aniga 3 sanaan inta jooga 3 sanaan soo moogtaa maxaad warbixin naga siin kartaa dalkii dhibaatada dadka lagu hayo dalka dhibaatada lagu hayo sawiradaas idin muujin karo sawiradaas adigu waxaad ogtahay in noo shaqeeyo dadka waa lagu laayaa ilmaha lagu xasuuqaa waa la caburiyaa dadka yaa laaya ma waxa laaya dadka Soomaalida ee gobolka ku nool waxa laaya amxaarada waddanka waxa laaya booliiska uu ninkaas soo oo new booliiska leeyahay axmaarada u adeegsato new booliisku ma Soomaaliba ma waa Itoobiyaan Soomaaliya isku shaqeeyay magac Soomaali bay leeyihiin kuwa dad Itoobiyaan ku shaqeeyay
marka ciidamadaasi ma waxa loo dhisay amniga iyo kala dambeynta inay soo celiyaan mas'uuliyadda shacabka lagu laayo inay dadka xasuuqaan oo shacabka xaburiyaan ayaa loo samaystay halkan waxa ayaa maanta waad aragtaa shaygu waa adag yahay waxaa jira qabow fara badan maxaa kugu kalifay inaad qabowga u soo baxdo halka soo istaagtid maanta aad waxaan u jeclaan lahaa inaan dadkayga kala qayb qaato mudaaraadka dhiigii cad macna aan kaga soo horjeedno ama dowladda Itoobiya dadka qurubadaha ay soo dirsadaan aan kaga soo horjeedno halkan ay kaliftay mudaaraadka kan oo waqti badan joogay ilaa hadda adigu xilmaadka Mareykanka 8 bilood baan joogaa 8 bilood baan joogtaa ka hor xagee joogtay waddankan si toos uga yimid waxaan ardaydii xasuuqiyo gumaad ku dhacay oo muddo dheer jeelka ku jiray waxaan tusi karaa jirkayga xarkii lagu xidhay baan tusi karaa oo ciidanka uu soo watay xidhay baan tusi karaa waxaan hadda ugu daba joogaa dacwad baan ku wadnaa isaga oo halka joogan dacwad ku wadnaa adigu ma dhalinyaradii xagga xabsiga loogu geystaa haa waxaan tusi karaa jirkayga macna meelihii xarkaa laga xidhay baan tusi karaa haa sababta Mareykanka ku timid mataasa miyaa tustay qolada human rights-ka human rights aan tusay waxa sharciga anu waxaan ay boortka la sayri baan hay asalahan ogaadeen inaan hay la qaabilay ururka maxay baa ka haysay anu waxaan kama inshaalla markii lagu qabanay xagee ku sugnay meelaha har baan ku sugnay yaa ku qabtay waxay qabtay niman jaajisiin oo Soomaali ku hadlay Itoobiyan afar nooc ciidan ay qabtay laban Itoobiyan ana laban luqad Soomaali ku hadlay Itoobiyan leedahay laban ahmar waxay su'aalo ku weydiiyeen waxaa ka mid ah waxaa taageertaa on laf iyo wax noocaas dadka dhan xidhaan noocaas ninkan hadda halka yimi waa madaxweynihii loo doortay gobolka Ogaadeen ay Soomaaliya degtay marka maxaad u aragtaan isaga sidiisa marka sorry horta marka hore waxaan ka cudur daaranayaa madaxweyne la doorto ma jiro waxa laga doortana ma jirto anigu waxaan ahaa dhalinyaradii iskaaboodiga ka shaqayn jirtay oo doorashada ololeeda ka shaqayn jirtay sanaaduuq baana loo dhiibi jiray sanaaduuq waxaa loo odhan jiray hebel waanaad ugu soo shirtaan codka anoo amar qaadanay amar haysa macna amar nalagu cadaadinaya maaha wax madaxweynaha taasa ka cudur daarana inaan madaxweyne odhan dhiigii cabkan cid soo dooratay male macna waxaana ka soo horjeednaa ciidanka kale waxaan ka soo horjeednaa dowladda Itoobiya ee macna xaar macna soo gufaysay waan ka soo horjeednaa inay noo soo Ogaadeen haatana waxaan u gudbayaa hooyo Soomaaliyeed oo u soo baxday qabowga maantay qabowga aad ugu fara badan yahay dadka waa dhiban yihiin hase yeeshee xarun ka tan badan awgeed ayay waxay yimaadeen downtown Minneapolis hooyo magacaaga marka hore magacayga Faadimo Yuusuf Ali Faadimo Yuusuf maanta maxaa kugu kalifay qabowga u soo baxday maanta waxay u kalifay anoo qof hooyo tabartaale oo aragtay insha Allah yahay baa waxa dhacday ninkay daba socda hadda madaxweynaha lagu sheegayo u shaqaan wato iyaga ii geystay dhibta aan maanta la dhutinayo ayaga ii geystay ninkaygu buu dilay wiilkaygu curad buu dilay kii ku xigay buu dilay ehelkay oo dhan buu dhameeyay intuu dambay kala jeel bay ugu jirtaa ninka noocaas ah maanta madaxweynaha la sheegay dhigyacabka daraadii iyo murugada ay haysataan u soo baxay dhawaa maanta waxaad sheegtay in madaxweynaha haatan halkan Maxamed Cumar uu dilay ninkaagii adiga muxuu dhibaato kuu geystay aniga ciidamada uu haysto yaa ii burburiyay oo jirdil igu sameeyay saadaraaddeed baan aniga waddanka ku imid anoo ciryaana layguna soo qaaday calankana wadataa waa maxay calankan waa calankii ONF waa calankii ONF haa adigu ONF baa taageersan tahay waan taageersanahay boqolkiiba ayagaanan aayidsanahay damiirkayguna iyagu isiiyey inaan ilaa inta calankaa laga helay anoo noocaasa daba socdo waxa mudaaharaad ka duwan oo laysugu imaan kara ma jira oo hal lagu raadin waa nuweynay taa waa dhiigyacab nin dhiigayaga cabo carruurtayada iyo cuno aan nadilo saa ii galay lama shiri karo ilmaduna waxay iga dumana wallaahi caloolxumada ay haysatay ma doonayo waa dhiigyacab hooyooyinkii ka soo qayb galay mudaaharaadka maanta ka dhacaya waxayna aad u sheegtay in ninkeedii lagu dilay dagaaladii ka socday gobolka Ogaadeen waxay sidataa calankii Ogaadeen waxayna sheegtay inay taageersan tahay oo lafta waxayna ka soo horjeedaa madaxweynaha waa maamo aad u weyn dhibta maanta halkaa keentay waa la dareemi karaa marka haatan waxaan ku keenaa daawadayaasha dadweynaha kale waxaan ugu dhex maraynaa mikrofonka waa Sama TV halkaad wala kala socotaan Stop the genocide! Why are you here today? Stop the genocide! Again as whom? No more genocide!
genocide! No more 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 genocide! kusoo dhawaad Sama TV waan halkan nala joogo wiil dhalinyarada Soomaaliyeed waxaad taagan tahay meel aad u qabow waa downtown Minneapolis magacaaga marka hore walaal أنا علي عبد الكريم I'm from North Dakota. I traveled all the way from there to here to be part of the protest to stand against the injustice that's happening in the Ogaden region. The human rights has documented a collection punishment where it's stating that this is a genocide. The Genocide Watch has declared as a genocide, but the world is just denying the facts. For so long, I was a witness as 7 years old of this situation. And nobody cares about it, but at this time, there is people that cares about it, because we are the American citizens and paying the tax. Whether Obama, whether anybody supporting you, we won't fight. And we'll until the justice is brought to Meles Zenawi and anybody supporting. That's the message we want to send it to the world, that we are the Americans, and we will fight along with those people that are suffering and going the injustice. Thank you. خديجة وسما تي في ومانتي إذا كنت لك شيء برنامج كلام القادم ذكر مظاهرات كتير ماشية محل هالك نوتي ومركورة هالك ما هنا كوبنا وبحر إنك تذكر اللي أو مجعنا جدنا تذكر ليك مجعيس إنك وحنين هذا عبدي إلي هو عبدي إلي نباته وجس أنا ما عرفت مش واضح وحن كعركي يعني كاميرادii laga soo qaaday dadka iyaga dad badan oo dhaawac oo iyagu imaada Kenya ku arkay dad badan oo inta imaadaan ku arkay waa la dilaa waa la laayaa dhirtuu jaraax xooluhu dhoofiyaa wax walba uu sameeyaa aniga aabahay Ethiopia wuxuu ka soo cararay xeer salaasi dareenkaagu sidee yahay marka dareenkaygu wuxuu yahay in aan wadankeena aan xoreyno maadaama aan canshuur bixiyo wadanka Mareykanka waxaan u baahanahay inay dowladda Mareykanka ay support-ka ay siinayso ay ka goyso ilaa iyo Mingisto خديجة عاد ما سنتها Abdullahi AK Singu ilaa this we're here to protest the genocide that is taking place in Ogadenia. There's no peace, there's nothing. A couple days ago, there was like 16 people killed in Gabri Dahare. There was 20 people killed in Higlalay. So no more genocide. We want the United States to know that they need to stop another Darfur taking place. Do you understand? We're here to show the world that we're not going to be silent anymore. We have to speak up. All Somalians need to come together and make sure he is a murderer.